السلام عليكم soo dhawaada asxaabta ku soo dhawaada barnaamijkeena daaqaad macluumaad jidhkaagu leeyahay laakiin aanad aqoon 2 daqiiqo kaliya nala sii daawo barnaamijka ku darso ogaalkaaga in marka qofku hurdo qaybaha dareenwadku gabi ahaanba shaqada joojiyo oo aanu shaqayn ku darso ogaalkaaga in haddii riyadu kugu badan tahay aad ka mid tahay dadka ugu fahamka iyo garashada wanaagsan sida baaritaano badan oo lagu sameeyay aadamuhu tilmaameen dadku marka ay hurdaan aad ka horiyooda inay aad u maskax wanaagsan yihiin ku darso ogaalkaaga in baaritaano badan oo lagu sameeyay lagu ogaaday in indhaha aadamuhu maqluub yihiin maqluubna waxa u arkaan laakiin qayb maskaxda ka mid ah ay sida caadiga ah ka dhigto haddii qaybtaas shaqada joojisana qofku wax walba maqluub u arki lahaa waxaana xaaladaasi dadka qaarkood arkaan marka dhiiggu ka yaraado ee qaybtaas yara gaabiso ku darso ogaalkaaga in xajmiga maskaxda aadamuhu 2% ka tahay guud ahaan qiyaasta jirka ama miisaankiisa haddana isticmaasho 20% ka mid ah neefta oksijiinta jirka 15% ka mid ah garaaca wadnaha iyadoo sabab tahay ku darso ogaalkaaga in sababta marka qofku qarqaro uu ilkaas kula dhaco xilliyada qabowga dhaxanta uu ka dhasho ama ay keenaan hormoonada erythrocyte oo kuwa borotiinka subagga ku jira jirka ka sameeya difaaca qabowga ka difaaca waxaana ilkasku garaacistu calaamad u tahay in hormoonadani hawlgal ku jiraan ku darso ogaalkaaga in cayayaanada ilmo maaragtayda ah ee maqaarka jirka aadamiga ku nool bilyan tiradooda ka badan tahay qiyaas ahaan baarayaashu ku tilmaamaan in aadamiga ay ka tiro badnaan lahaayeen inta hal qof oo kaliya maqaarka jirkiisa ku nool haddii la tirin lahaa daawade ku darso ogaalkaaga in dhididka jirka aadamigu aanu markiisa hor ur lahayn oo uu dareere caadi ah yahay kadibna urta kulul ee dhidu ka samaysanto ku darso ogaalkaaga in si aad u ogaato nooca codkaagu yahay ama dadka kale ku maqlaa waxa aad dhigtaada bidix saartaa gacantaada kadibna dhageyso waxa aad si fiican u ogaan doontaa codkaagu sida uu yahay